اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ويا اخي تمام. hay-adaha amniga ay kusoo saareen lacagii xalkan cali magaalada muqdisho waxaan ku bilaabayaa hadalkayga sida aad la socotaan hay-adaha amniga iyo xeer ilaalinta waxay maalmaha wadeen baaris dambiyo muwaadiniin soomaaliyeed oo lagu tuursan yahay in ay maleegayeen dambiyeedyo ama khiyaano qaran taas oo qalka lagu gelinayo laguna burburinayo nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. waxaa reeban in muwaadin uu adeego dano shisheeye oo kasoo horjeeda jiritaanka dowladnimada Soomaaliya. hay-adaha amniga iyaga oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah iyo awaamiir ka soo baxday hay-adaha sharciga ayaa xalay abaarihii 11 iyo barkii habeenimo guri lagu tuursanaa in lagu abaabulo falal dambiyeedyo kor ku dhisan ayaa markii ay hay-adaha amniga tageen gurigaas muwaadiniintii guriga joogtay u hoggaansami waayeen awaamiirtii ahayd in la baaro iyadoo la waday warqadihii ruqsadda baarista iyo horgeynta sharciga. guriga waxaa ku sugnaa mudan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ahaa shaqsigii ama ruuxii ruqsadda loo soo qaatay, wuxuuna si cad uga hor yimid fulinta awaamiirtii hay-adaha amniga. kadibna ciidanka ilaalada u ahaa isaga waxay rasaas ku bilaabeen ciidamadii ka socday hay-adaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya. bacdamaa uu muwaadinkan diiday inuu hoggaansamo awaamiirtii hay-adaha sharciga kalena hor yimid dagaal hubaysan, waxay ciidamadu ku guulaysteen in ay soo qabtaan isaga oo dad qaba. sidoo kale waxay hay-adaha amniga la wareegeen qalab la aaminsan yahay in ay qayb weyn ka qaadan doonto baarista iyadoo sharciga waafaqsan. tallaabadaas hay-adaha amniga ay u mareen si waafaqsan shuruucda dalka iyadoo la fulinayay awaamiirtii hay-adaha sharciga. muwaadin walba waxaa waajib ku ah in uu hoggaansamo sharciga, mana jirto cid ka sarraysa sharciga, kana fogaadaan fal kasta oo keeni kara xadgudub qaanuuneed iyo inuu ka dhasho fal dambiyeed. sidaas darteed shacbiga waxaan ka codsanaynaa in ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo fulinta sharciga iyaga oo dowladda federaalka Soomaaliyeed ay damaanad qaadayso xuquuqda muwaadin kasta uu siiyey dastuurka iyo shuruucda dalka. muwaadinkan wuxuu helayaa baaris hufan, waxaana loo geyn doonaa maxkamadda awoodda u leh, wuxuuna heli doonaa xukun cadaaladeed. ugu dambeyntii shacbiga Soomaaliyeed waxaa loogu baaqayaa in ay kaalin ka qaataan amniga iyo nabadeynta, kana fogaadaan fal kasta oo keeni kara xasillooni darro siyaasadeed iyo mid amni. muwaadin kasta waxaa waajib ka saaran yahay inuu danta guud ee dalka ka horumariyo danihiisa gaarka ah. waa mahadsantihiin. waxaan kusoo dhaweynayaa xildhibaanyaha guud ee qaranka si uu isna ugu soo dhaweeyey wasiirka wasaaradda amniga, afhayeenka wasaaradda la taliyaha wasiirka wasaaradda amniga ahna afhayeenka wasaaradda cabdicasiis cali ibraahim. cabdicasiis xildhibaan waa mahadsantihiin.